لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سودو هذا ما أنتوا حنسكوبن وجو رحمة دونا إسكريس of students into 20th century حرفدها لقى ربو أرديغا نول قرنيغان كوبيلاتنا مقالك waxa qoray ninka la yiraahdo Stephen bishii March sanadkan inuu ku jirno 2020 ayuu daabacay wuxuu ku daabacay applied education system website-ka la yiraahdo kaas ayaan markaa anaka soo akhriyay kana soo xigtay waxa jirta markaa skills ama xirfado loo baahan yahay in ardayga nool qarnigan uu yeesho xirfadahaas oo la isku raacay la isku waafaqsan yahay qarnigan bilowgiisina la dejiyay waayo qarni kasta iyo waqti kasta waxa la dejiyaa skills ama xirfado loo baahan yahay qofka nool inuu ku dhaqmo oo uu sameeyo si markaa qofkii gaadhana uu noqdo wixii la doonayay kaan gaadhina markaa uga xaro skillskan waxa weeyaan ila dhowr iyo 10 qodob waxa isku day doona markaa si kooban inaan uga warramo insha Allah ta'ala qodobadaasi saddex qodob waaweyn ayay hoos tagayaan qodobada koowaad waxa la isku yiraahdaa learning skills waa xirfadaha looga baahan yahay ardaygu markuu wax baranayo waxa ugu horeysa xirfadda la yiraahdo critical thinking waxa weeyaan qofku inuu xal u heli karo waxyaabaha ku wareegsan iyo waxyaabaha markaa caqabadaha jira inuu qofku xal u heli karo uu rogi karo waxna iska weydiin karo xal waaran uu ka keeni karo qodobka labaad ardayga looga baahan yahay waxa weeye inuu noqdo arday leh initiative waa inuu noqdo qof leh hal abuur waxa uu baranayo waxa uu dhiganayo markaa wax ku soo kordhiya iskuna day markaa inuu waaqica iyo waxyaabaha jira qabadsiiyo si markaa wixii uu noqdo wax meel dhala qodobka saddexaad waxa weeye collaboration inuu yeesho ardaygu collaboration waxa weeye inuu dadka kale la shaqeeyo haddii tahay bulshada haddii tahay macallimiintiisa iyo haddii tahay markaa cid kastoo markaa ay wax iskaga jiraan oo environmentka kula nool ama deegaanka kula nool wax wanaagsan qof inuu la shaqeyn karo una isku dayi karo markaa inuu si wanaagsan ula dhaqmi karo ayaa loo baahan yahay qodobka afraad waa qodobka la yiraahdo xiriirka ama xiriir sami communication qodobkaasina wuxuu muhiim u yahay waa inaad garan karto dadka waxaad kula xiriirisay waxa ugu muhiimsan luqadaha inaad barato markaa luqadii kula meeshii aad joogtay aad wax ka baranaysay luqadda koowaad oo ahayd luqadda labaad oo ahayd la isku afgaranayay lagu wada hadlayay inaad barato iyo sidii loola hadlayay dadka hadday noqoto markaa hadalkii hadday noqoto qoraalkii iyo hadday noqoto markaa gudbintiiba inaad yeelato iyadna waa muhiim afarta xirfadood waxa la isku yiraahdaa learning skills waa xirfadaha looga baahan yahay markaa ardayga waqtigaasi nool xirfadaha kale waxa xirfadaha la isku yiraahdaa literacy skills waxa weeyaan waa xirfadaha iyaga loo baahan yahay qofku inuu ogaado waxa ugu horeysa xirfadda la yiraahdo media skills qofku inuu ogaado markaa warbaahinta iyo waxyaabaha ka jira si markaa qofku uu kala saari karo waxyaabaha xaqiiqada waxyaabaha maawiliska iyo waxyaabaha markaa xaqiiqada ku fog si qofku u ogaado waxa muhiim ah inuu yeesho media skills qodobka saddexaad labaad literacy skills looga baahan yahay waxa weeyaan qofku inuu yeesho information skills xogaha uu helayo qofku inuu kala garan karo kala shaandhayn karo iyadna waa mid muhiim ah qodobka saddexaad literacy skills waxa weeyaan isaguna inuu yahay qodobka loo yaqaano technology skills sida uu shaqeynayso markaa waxyaabahan qalabkan casriga casrigan hadda aynu nool nahay teknolojiyadda qaabkii uu shaqeynayso inuu ardaygii fahmo waa mid iyadna muhiim oo loo baahan yahay qofku inuu yeesho saddexda qodobna waa literacy skills waa yani skillska qofka looga baahan yahay ardayga inuu ka ogaado waxyaabaha deegaanka ku hareeraysan ee markaa caawinaya isaga shakhsiyadiisa qodobada kale u dambeeya waxa weeye waa life skills waa xirfadaha loo baahan yahay qofka nolosha inuu ka ogaado qodobka ugu horeeya waa flexibility waxa weeye qofka inuu noqdo qof furan oo bulshada la dhaqmi kara noocay doontaba ha ahaatee markaa qodob isna muhiim ah oo loo baahan yahay qofku inuu yeesho qodobka kale ku xiga waa productivity qof markaa in noqdo qof wax soo saar leh oo bulshadii iyo waxyaabihii markaa ku dhex jiray wax ku soo kordhin kara halkana markaa waxay ka wadaan in qofku bulshadii uu dhex gali karo waxna ku soo kordhin karo qodobka kale ku xiga waxa weeye qofku inuu yeesho waxa loo yaqaan markaa leadership skills waa inuu qofku ogaan karo in la hogaamiyo isna uu hogaamin karo wixii la yiraahdo yeeli karo uu wax maqli karo isagu wax amri karo la amri karo qofka markaa inuu yeesho iyadna waa mid muhiim ah oo looga baahan yahay qofkii inuu yeesho iyadna waa muhiim qodob kale ku xiga waxa weeye inuu yeesho qofkii leadership skills waxa weeye waxaan jeedaa qodobka u dambeeya waxa weeye social skills qofka inuu yeesho bulshada qaabkii ula xiriiri lahaay ula dhaqmi karaay uu noqon lahaa qof bulshaawiya inuu noqdo guud ahaan waa 12 qodob ee u qaybsamaya saddexda qodob ee waaweyn waxa loo baahan yahay markaa maadaama aynu nahay dadkii noolaa qarnigan waa muhiim inaynu ogaano waxyaabaha qarnigan looga baahan yahay si aynaan adduunka kale iyo dadka nala tartamaya uga harin
ardayda waqtiga nool waxa muhiim ah qodobada aynu sheegnay balbalaaran kulli waa qodobo aad u balbalaaran oo jaamacada looga baxo oo muddo farabadan la geliyo asaxtii aan doonayo inaan dadka ku baraarujiyo si kooban markaa si loo ogaado waayo waxa u baahan yihiin markaa falanqayn dheer iyo dood dheer iyo in aad loo gorfeeyo u baahan yihiin laakiin waxaan rabay markaa inaan si kooban la ogaado maadaama aniguna aan ogaaday markastana aan jeclahay wixii aan ogaaday inaan bulshada u kordhiyo u sheego waxaan kusoo koobayaa markaa 12 qodob guud ahaan iyo 3 qodob markaa ay ku dhex wareegayaan waxa muhiim ah inaan ogaano intii ardayda intii kala markaa ay ku dhaqmaan si qarnigan inuu joogno la jaan qaadno inaan adduunka uga hadhin intaas ayaan kusoo koobayaa inta barnaamijkan lamida ku kulmi doono